bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada dunida news TV maanta waxaan diiradda saari doonaa isbedeladii ka dhacay suuqa cryptocurrency tan iyo maalintii Axadda ee aynu kasoo gudubnay toddobaadkan isbedelo waaweyn ayaa ka dhacay suuqa cryptocurrency tan iyo Axaddii 20 Abriil ee sanadkan 2025 ilaa maanta oo Arbaca ah 23 Abriil 2025 suuqyada lacagaha digitalka ah ee cryptocurrency waxay la kulmeen isbedelo muhiim ah iyadoo Bitcoin iyo Ethereum ay sare u kaceen halka qaar kamid ah altcoinskana ay hoos u dhaceen. Isbedeladan waxaa saameeyay arrimo ay kamid yihiin siyaasadda Mareykanka, xiisadaha ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha, iyo sidoo kale dhacdooyinka muhiimka ah sida kala barista Bitcoin halving. Haddaba muxuu yahay kororka qiimaha Bitcoin iyo Ethereum waxa sababay ama halka uu gaarayba? Bitcoin oo loo yaqaano BTC ayaa sare u kacay ku dhawaad 200% isagoo gaaray qiimo ka badan 92,000 oo dollarka Mareykanka ah markii ugu horeysay tan iyo bishii Maarso. Ethereum isagana waxa uu kordhay in ka badan 4% isagoo gaaray 1,768 dollar. Kororkan waxaa sabab u ah yareynta xiisadaha ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo sidoo kale hadallo ka yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muujinaya taageero dheeraad ah oo loo fidinayo suuqyada maaliyadda. Hoos u dhaca altcoinska isagu maxaa sababay ayaa la isweydiinayaa. Inkasta oo Bitcoin iyo Ethereum ay sare u kaceen, qaar ka mid ah altcoinska sida Dogecoin iyo sidoo kale Toincoin ayaa hoos u dhacay ilaa 8%. Suuqa guud ee cryptocurrency-ga ayaa kor u kacay 0.28% isagoo gaaray 2.45 trilyan oo dollar. Bitcoin wuxuu hadda leeyahay saamiga ugu weyn ee suuqa isaga oo haysta 52.62% ee guud ahaan suuqa. The Economic Times ayaa qoray warbixintaasi. Saameynta kala barista Bitcoin halving. Dhacdo muhiim ah oo saameyn ku leh qiimaha Bitcoin waa kala barista halving oo dhacay bishan Abriil. Kala barista waxay yareynaysaa abaalmarinta la siiyo kuwa qoda Bitcoin, taasoo keenta in la yareeyo tirada Bitcoin ee suuqa soo gasha. Tani waxay sare u qaadaysaa qiimaha Bitcoin sababtoo ah yaraanta sahayda ayaa aad u yaraanaysa, waxaana markaasi badanaya qiimaha Bitcoin ayaa sare u kacaya. Saameynta siyaasadda ee dalka Mareykanka maxay kaalin ah oo ay ku leedahay kororka ku yimid Ethereum iyo Bitcoin? Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib uga laabtay hanjabaadihii uu ku doonayay in uu shaqada ka eriyo gudoomiyaha Federal Reserve, taasoo dejisay suuqyada maaliyadda. Sidoo kale hadallo ka yimid Trump iyo xogayaha maaliyadda Scott ayaa waxa uu muujiyay suurtagalnimada in la yareeyo canshuuraha la saaray alaabada ka imaanaya dalka Shiinaha, taasoo sare u qaaday kalsoonida suuqyada ee dalkaasi. Waxaa qortay warbixintaasna wakaaladda wararka ee Reuters. Aragtida mustaqbalka maxay tahay? Iyada oo la tixgelinayo kororka qiimaha Bitcoin iyo Ethereum, hoos u dhaca altcoinska iyo saameynta siyaasadda Mareykanka, suuqyada cryptocurrency-ga waxay muujinayaan xasilooni iyo koror suurtagal ah mustaqbalka dhow. Si kastaba ha ahaatee, maalgashadayaasha waa inay si taxadir leh u eegaan isbedelada suuqyada iyo arrimaha siyaasadeed ee saameyn kara qiimaha lacagaha digitalka ah. Warbixintan waxay muujinaysaa sida suuqyada cryptocurrency-ga ay u saameeyeen arrimo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhacdooyinka gudaha ee Bitcoin, siyaasadda Mareykanka, iyo isbedelada suuqa guud. Maalgashadayaasha waa inay si taxadir leh u eegaan arrimahan si ay u gaaraan go'aano xog ogaal ah. Wahagaag wali waxaad inaga daawanaysaan dunida news TV, bal markan saaxiibayaal aan isla eegno falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan suuqa cryptocurrency. Kororka Bitcoin waxa uu kor u kacay 2% isagoo gaaray in ka badan 92,000. Sababtuna waa yaraanta sahayda halving iyo sidoo kale kalsoonida siyaasadeed.
Ethereum isagana uu ka faa'iiday gaar ahaan sabab la xiriirta barnaamijka Divi iyo Ethereum 2.0 horumarkiisa. Altcoinska hoos ayuu u dhacay. Dogecoin iyo sidoo kale Toincoin waxay la kulmeen hoos u dhac sabab la xiriirta ay yihiin meme coins oo aan lahayn taageero maalgashi xoog leh marka suuqa noqdo mid taxadar leh. Suuqa kriptaga oo dhan wuxuu gaaray 2.45 trilyan taasoo muujinaysa in BTC uu hogaamiyo hadda suuqa maaliyadda ee digitalka. Saameynta siyaasadeed ee suuqa cryptocurrency-ga. Trump oo ka laabtay hanjabaadihii ka dhanka ahaa Federal Reserve iyo sidoo kale war ku saabsan canshuur dhimista Shiinaha laga qaadayo ayaa sabab u noqday in uu sare u kaco suuqa cryptocurrency-ga. Warbixinteennii gaarka ahayd ee aynu kaga hadlaynay isbedelada ku yimid suuqa cryptocurrency-ga inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa. anigoo Cabdiwahaab ah ayaa idinla socodsiinayay Dunida News TV ayaad inaga daawanayseen. fadlan nagu soo biira page-ka follow inoo dhaha, like iyo share ku sameeya muuqaalka, sidoo kale asxaabtiina la wadaaga. nagu soo biira si aan dhiirigelin uga helno adinkana aan idinkugu soo gudbino warbixinadii ugu dambeeyay ee caalamka. nabadgelyo inta aan markale dib u kulmi doono.